بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. waxaan hambalyo ku aadan dhalashada bisha barakaysan ee Ramadaan hawada u marinaya dhammaan ummadda muslimiinta ee ku nool dunida guudkeeda. si gaar ah waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa intaba. waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. sanadka hijriga 1444 waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ina waafajiyo cibaadada bisha soomka isla markaana inaga aqbalo. waxaan kula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay ka faa'iideystaan bisha Ramadaan ee barakada badan. waa bishii iskaalmeynta iyo isu naxariisashada, waa bishii towbada, waa bishii iscafiska. walaalayaal, fursadan aan ka faa'iideysano ilaahay uu ina siiyo subxaanahu wa tacaala bishaan barakaysan oo aan iscafino, aan towbad keenno, aan isu kaalmayno, keenna waxaysta kaan waxaysanin ha u kaalmeeyo oo ha u naxariisto. xikmadda ku jirta soomka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadkoo dhan u simay ee ah inayna wax cunin maalintii, xikmadaha waaweyn ee ku jira waxaa ka mid ah in ka waxaysta la dareensiiyo in uu sida uu maanta u baahan yahay uu mid walaalkiisii maalin walba u baahna. sidaa darteed aan isu naxariisano maadaama ay tahay bishii cibaadada. sidii caadiga ahayd kooxda khawaarijta oo ayagu caadaystay daadinta iyo ku qubaysashada iyo cabitaanka dhiigga muslimiinta, waa bishii ayagu ay dhibaatada ugu weyn u geysan jireen ummadda muslimiinta ah. sidaa darteed waxaan faraynaa hay-adaha amniga in ay ka digtoonaadaan dhagarta cadowgaas, isla markaana ay sugaan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee cibaadeysanaya. dhammaantiin mar kale waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. ilaahay cibaadada hayna waafajiyo, hana inaga aqbalo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.